dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay carqaladaysay ku dhawaaqida ergeyga Ruushka ee ah in xukuumadda Moscow ay ka laaban doonto ansixinteedii heshiiskii 1996 kaasoo mamnuucayay tijaabinta hubka nukliyeerka. ergeyga Ruushka u jooga ururka caalamiga ah ee mamnuucidda hubka nukliyeerka Mikhail Olyonov ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay burin doonto ansixinteeda heshiiska. ku dhawaaqista Olyonov ayaa dab cusub ku sii kordhinaysa xiisadda u dhaxaysa quwadaha ugu waaweyn ee hubka nukliyeerka haysta xilli uu Ruushka ku duulay dalka Ukraine dhinaca kalena Mareykanka uu taageero military siinaya xukuumadda Kiev. ujeedadu waa in lala sinaado Mareykanka oo saxiixay heshiiska laakiin aanan ansixin ka noqoshadana macnaheedu ma aha in la doonayo in dib loo bilaabo tijaabooyinka nukliyeerka ayuu yiri ergeyga Ruushka. hadalka Olyonov ayaa daba socday maalin uun kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in Moscow ay dib u qiimeyn ku sameyn karto ansixinteeda heshiiska. isagoo ka hadlayay kulan uu la yeeshay khubaro arrimaha dibadda ah oo reer Ruush ah, Putin waxa uu sheegay in Mareykanku uu saxiixay balse aanu ansixin heshiiska tijaabada nukliyeerka ee 1996 halka Ruushku saxiixay sidoo kalena uu ansixiyay. waxa laga yaabaa in Moscow mowqifkeeda ay ku jaangoyso kan Mareykanka ayuu yiri Putin. aragti ahaan waxa laga yaabaa inaan burino ansixinta ayuu yiri waxayse ku xiran tahay xubnaha qarankeena. Putin ayaa sidoo kale sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in Ruushka uu sameeyo tijaabooyin nukliyeer ah haddana uusan wali fikrad ka samaynin arrintan. diyaaru ma ahi inaan sheego inay mahuraan noo tahay inaan sameyno doola tusiyo iyo in kale ayuu yiri. mar la weydiiyey haddii ka noqoshada Ruushka ee mamnuucidda ay u gogol xaarayso dib bilaabista tijaabooyinka bambaanooyinka nukliyeerka ayuu afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov u sheegay suxufiyiinta hadalka inuusan ku saabsanayn ujeedada dib u bilaabista tijaabooyinka nukliyeerka. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku booriyay dhammaan dawladaha hubka nukliyeerka haysta inay si cad u qeexaan joojinta tijaabada nukliyeerka iyo inay ka go'an tahay ku taagnaanta heshiiskii 1996 sida laga soo xigtay ku-xigeenka afhayeenka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Farxaan Xaaq. Robert Floyd oo ah agaasimaha fulinta ee heshiiska 1996 kaas oo kormeeraya oo hogaansanaantiisa ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay noqon doonto mid walaac leh oo aad looga xumaado haddii mid ka mid ah saxiixayaasha dib u eegis ku sameeyo ansixintiisa. Ruushku wuxuu si joogto ah u xaqiijinayay taageerada xooggan ee uu hayo heshiiskaasi reebaya tijaabada hubka nukliyeerka tan iyo markii la meel mariyay oo uu saxiixay 24 September 1996 iyo ansixintiisii bishii June ee sanadkii 2000 ayuu Floyd yiri. Ruushka iyo Mareykanka ka sokow colaadda Ukraine waxa ay ku loolamayaan guud ahaan adduunka gaar ahaan gobolka bariga dhexe iyo qaaradda Afrika. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay carqaladaysay ku dhawaaqida ergeyga Ruushka ee ah in xukuumadda Moscow ay ka laaban doonto ansixinteedii heshiiskii 1996 kaasoo mamnuucayay tijaabinta hubka nukliyeerka. ergeyga Ruushka u jooga ururka caalamiga ah ee mamnuucidda hubka nukliyeerka Mikhail Olyonov ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay burin doonto ansixinteeda heshiiska. ku dhawaaqista Olyonov ayaa dab cusub ku sii kordhinaysa xiisadda u dhaxaysa quwadaha ugu waaweyn ee hubka nukliyeerka haysta xilli uu Ruushka ku duulay dalka Ukraine dhinaca kalena Mareykanka uu taageero military siinaya xukuumadda Kiev. ujeedadu waa in lala sinaado Mareykanka oo saxiixay heshiiska laakiin aanan ansixin ka noqoshadana macnaheedu ma aha in la doonayo in dib loo bilaabo tijaabooyinka nukliyeerka ayuu yiri ergeyga Ruushka. hadalka Olyonov ayaa daba socday maalin uun kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in Moscow ay dib u qiimeyn ku sameyn karto ansixinteeda heshiiska. isagoo ka hadlayay kulan uu la yeeshay khubaro arrimaha dibadda ah oo reer Ruush ah, Putin waxa uu sheegay in Mareykanku uu saxiixay balse aanu ansixin heshiiska tijaabada nukliyeerka ee 1996 halka Ruushku saxiixay sidoo kalena uu ansixiyay. waxa laga yaabaa in Moscow mowqifkeeda ay ku jaangoyso kan Mareykanka ayuu yiri Putin. aragti ahaan waxa laga yaabaa inaan burino ansixinta ayuu yiri waxayse ku xiran tahay xubnaha qarankeena. Putin ayaa sidoo kale sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in Ruushka uu sameeyo tijaabooyin nukliyeer ah haddana uusan wali fikrad ka samaynin arrintan. diyaaru ma ahi inaan sheego inay mahuraan noo tahay inaan sameyno doola tusiyo iyo in kale ayuu yiri. mar la weydiiyey haddii ka noqoshada Ruushka ee mamnuucidda ay u gogol xaarayso dib bilaabista tijaabooyinka bambaanooyinka nukliyeerka ayuu afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov u sheegay suxufiyiinta
hadalka inuusan ku saabsanayn ujeedada dib u bilaabista tijaabooyinka nuclearka. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku booriyay dhammaan dawladaha hubka nuclearka haysta inay si cad u qeexaan joojinta tijaabada nuclearka iyo inay ka go'an tahay ku taagnaanta heshiiskii 1996 sida laga soo xigtay ku-xigeenka afhayeenka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Farxaan Xaaq. Robert Floyd oo agaasimaha fulinta ee heshiiska 1996 kaas oo kormeeraya oo hogaansanaantiisa ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay noqon doonto mid walaac leh oo aad looga xumaado haddii mid ka mid ah saxiixayaasha dib u eegis ku sameeyo ansixintiisa. ruushku wuxuu si joogto ah u xaqiijinayay taageerada xooggan ee uu hayo heshiiskaasi reebaya tijaabada hubka nuclearka tan iyo markii la meel mariyay oo uu saxiixay 24 September 1996 iyo ansixintiisii bishii June ee sanadkii 2000 ayuu Floyd yiri. ruushka iyo Mareykanka ka sokow colaadda Ukraine waxa ay ku loolamayaan guud ahaan adduunka gaar ahaan gobolka bariga dhexe iyo qaaradda Afrika. waa Abubakar Maxamed oo idin leh la socodkiina ayaad ku mahadsantihiin hamoogaanina inaad nagu soo biirtaan talana ku biirisaan Tifaftir Media intaan dib u kulmayno nabad iyo warsan.